السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه سلامة دمانتين والله Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta aad joogtiin walaalayaal waxaan rabaa maalin dhaweyd waxaan fiirsaday clip ay ka waramaysay gabar la yiraahdo Faadumo fulan oo dalsan ka shaqeyso oo dhahayso muwaadiniin Soomaaliyeed u badan dhalinyaro tiro gaaraysa 2870 ruux in madaarka Muqdisho lagu qabtay baasaboorradooda ay soo bandhigtay inta badan waxay ahaayeen dadkaas tahriibayaal rabay inay mataqaanaa tagaan Masar ay u sii gudbaan Liibiya si ay mataqaanaa Yurub daafaheeda kale ay u tagaan walaalayaalo waxaan idin weydiinaa dhalinyaro yacni ma ogtihiin qarashaadka aad bixinaysaan inuu badbaado wanaagsan u noqon karo noloshiina maadaama tarab aad u socotiin baddaasna aad tarab ugu dhimanaysaan xabsiyadaas shisheeyeen aad tarab ladinkugu guraayo inay ka qurxoonaan lahayd inaad inta samaysataan barkulan haddaad dhalinyaratiin inta isku aruursatiin lixdiina kun haddaa isku dirsatiin mithaal hadda 3,000 oo qof 3,000 oo dhalinyaro ah haddii 6,000 isku dirsadaan imisa lacag waa mataqaaniin waa 18 milyan waa 18 milyan